Bismillahi Raxmaani Raxiim. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Haddii Rabbi qadaro galabta waxaan wadaagi doonaa xog yaroo kooban oo ku saabsan shabeelka. Shabeelka kiisa lab waxaa la yidhaahdaa aareeye, ta dhadigna waxaa la yidhaahdaa aranyo. Meelaha qaarkoodna waxaa laga yidhaahdaa organ, ta dhadigna waxaa la yidhaahdaa nisbo. Shabeelku waxa uu ka mid yahay haanraawaha oo ah inta micida iyo cididaba ku ugaarsata. Waa bahal xeel badan oo Soomaalidu waxay ku muujisaa mahmaahda tidhaahda shabeelku nina waa la itaal, boqolla waa la tab. Waxaa la sheegaa laboodka shabeelku miisaankiisu waxa uu gaadhaa 90 kiilo, ta dhadigna waa 60. Mar kale Soomaalidu waxay tidhaahdaa shabeel haraggii buu dhintaa, oo aad baa loogu gabraartay haraggiisa kolkii uu adduunyo noqday. Arrintaa isagoo Ismaaciil Miro tilmaamayana waa kii lahaa shabeelkii gabraar lagu idlee giira layn jiray oo godadka kama soociyaan gabanadiisii haraggiisa nimankii gataa guuldarro u siday. Shabeelku inta badan buuraha iyo meelaha sheelanayn ishu qabanahaynin buu ku jiraa, waxaanu aad u laayaa riyaha. Sababta uu riyaha gaar ugu beegsadana Soomaalidu sheeko yaroo kooban bay ka maleegtay ama ay ka samaysay. Waxay beriberyaha ka mid ah baa dhala shabeel geel soo maray, waa ku durduriyey, waxna waa dilay. Intii baxsatayna kolkii ay hooyadoodu timi ayay ku tidhi yaa sidan idiin galay. Waxay ugu jawaabeen dhalihii geel baa sida noo gabawaray ama noo xasuuqay. Shabeelkii dhadigeed waxay tidhi geelidan ma layne garaa idin laysay, oo looga jeedo marka eedda cidda leh inta lagala soo waabto amba xoog ay leedahay ha looga boqo amba wax kaloo loogu xilanayaba ha loo daaye eedda cid kale loo hagoogo. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina, sii faafiya haddii Alla qadaro.